xanuunkii coronavirus oo aan wadayadaba ku jiro guddiga wuu inala jooga hadda qaar baa dad baa cisbitaalada iyo hawlaha la wadaa tijaabadu way badan tahay dad waa tii haddii alla xukmaayo laba qof oo kale waa tii hore loogu sheegay inay positive noqdeen warbahalkii wuxuu inala joogaa degalka yaynan isdiidsiin aynu sida aynu uga hortagi karno hooyo kasta iyo qof kasta iyo mas-uul kasta iyo qof kasta oo muwaadina reer somalilan yaynan isdiidsiine aynu iska ilaalino oo aqbalo talooyinka caafimaadka ee caalamku soo jeedinayo iyo ka dhakhaatiirteenu soo jeedinayso iyo ka guddigu soo jeedinayaan iyo ka mas-uuliyiintu soo jeedinaya intaba aynu dhegaha u furo xanuunkii wuu joogaa awal waxaynu lahayn wuxuu joogaa jabuuti wuxuu joogaa etoobiya wuxuu joogaa kenya laakiin maanta berberuu joogaa oo hargeysuu joogaa oo burcuu joogaa marka waxaan leeyahay ummadda reer somalilan aqbala inuu xanuunkii jiro oo is-ilaaliya salaanta iyo isu dhowaanshaha iyo gacanqaadka iyo hindhisahda iyo inaynu kulligee dadku isku wada ixtiraamaan anigaygaa qudhaydu qof weyn baa gacanta kuu soo taagaya oo aad ixtiraamayso markaasaad soranaysaa ma u dhiibtaa ma ka joojisaa yacni walaahow badan ayaa ku gelaya qaarkoodna dee waanu salaana qaar waa dhagoo khasaba ayaa marmar dee moogta marka waxaan leeyahay ummaddu waa inay aqbashaa in aynu dhakhaatiirtu wixii ayna kula taliyeen inaynu aqbalno masuubada ina haysataa maanta oo caalamka ku habsatay oo ah inaynu meel uga soo wada jeesanaa waa xanuunka naf baynu badbaadinaynaa qof bini aadana ayaa 100 qof dili kara forno sabab la'aan ayuu u dili karaa 100% isagoo aan ogeyn ama isagoo aan mas-uuliyadda saarin hadduuse mas-uuliyad qofku isa saaro dad badan buu badbaadin karaa muwaadin waxaanu ku leenahay ilaali naftaada ta caruurtaada ta caa'ilada ta dadka iyo ta saaxiibadaada haddii qof kastoo innagayna ka mid mas-uuliyadda qaato waxaa laga yaabaa inuu wax weyn u taro dadka